أوقات عبد الله الدوداية أوقات سودو مركا لفيريو أرمى شرعية جرو أرضي الله قابيني برتان تخصص قانونك حلقة يعني حق في عن كهلان أرمى شرعية قانونك لكن ما حد يقدر أرضي هذا فربضة أو تخصصات كل دوناء كلا دكتور أما برشلونة جود أهم إن بدنا أمر برا بحيث هاي وحيبها أساسي جوا قف كستا أو ينتهي كفهم سنة هذا أرمى شرعي ما دام يتروح اللف الجلا يعني الله شيء عادي يعني أرتم حق أساسي قفك أي تي قفك ميدسي قفك إنجنيير أي تهي كفهم شرعي لا بس أرضي القانون كلية لو قلت لك أنا واحد كهاني أنا أنت كذا لغاية بتخصص كذا إنك بحسن هذا حق أساسي وشرعي وينتهي قف السر سودو أو كذا runtii waa su'aal aad u muhiima jawaabteedana runtii aan isleeyahay inta la filayo way ka ballaaran tahay maxaa yeelay sharci marka la yiraahdo sida uu noola kooban yahay uma koobno waa wax xiriir la leh nolosha qaybaheeda kala duwan oo meel uu ka maran yahay aynan jirin sidaas darteed marka aan ka jawaabayno su'aashaasi waa inaan laba group u kala qaadno ama waa inaan ka jawaabno annaga oo dadka loo jawaabayo laba qaybood ka dhigayno guud ahaan qof kasto oo ama muwaadinka caadiga ah dadka caadiga ah oo aan sharci yaqaanka ahayn oo aan sharciga ka soo qalin jebin oo aan sharciga ku shaqaysan maxaa muhiim u ah sharciga inuu ka barto waa qaybta labaadna qofka sharciga soo barta laftarkiisa maadaama loogaga baahan yahay inuu takhasus yeesho ma jiraa wax oo mar walba uunan ka baarmayn ama sharci mar walba inuu barto uu ku khasban yahay takhasus kasta oo uu yeesho labadaas qaybood oo kala qaadayna qaybta ugu horeyso oo guud ahaan dadka maxaa loogaga baahan yahay inay bartaan jawaabteeda waa lagu kala aragti duwan yahay aniga dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yiraahdeen waa inuu bartaa xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyaadka ama arrimaha dastuurka uu sheegayo oo waajibaadka iyo xuquuqda inuu barto inay yiraahdeen laga yaabaa dadka kale wax kale inay yiraahdeen laga yaabaa aniga laakiin waxay ila tahay qof kasto waxaa waajib ku ah ama uu ku khasban yahay in uu barto xeerka ciqaabta Soomaaliya laba sababood ayaan arrintaas ku salaynayaa sababta koowaad waxaa waaye xeer markaad baranaysid ama sharci markaad baranaysid waxaad u baranaysaa in aad iska ilaaliso jebintiisa si aadan dhibaato ula kulmin xeerka habka ciqaabta jebintiisa waxaa khatar u geli karo noloshaada xurriyadaada hantidaada shaqadaada tasarrufaadkaaga waxaas oo dhan ayaa khatar u geli karo waxaa laga yaabaa dembi xeerka ciqaabta ku jiro inaad gasho ee ay ka dhalato in adiga lagu dilo lagu toogto ay ka dhalato waxaa laga yaabaa jebinta xeerka habka ciqaabta inay ka dhalato inaad xurriyadaada weysid oo dhowr sano aad xirraato 10 sano aad xirraato forever aad xirraato oo xurriyadaada weligeed aad weysid waxaa laga yaabaa jebinta xeerka habka ciqaabta inay ka dhalato in la yiraahdo qofkan dembiga noocaas iyo noocaas oo galo tasarrufaadka noocaas ma sameyn kariyo wax gedi ma kariyo hantidiisa wareeji ma kariyo mamnuucay ka tahay waxaa laga yaabaa inuu shaqadaada khatar ku keenyo dembi xeerka habka ciqaabta ama qodob xeerka ciqaabta kamida inaa inta jebisa la yiraahdo qofkan shaqo dawladeed looma dhiibayo ma ganacsan kariyo shaqada noocaas uma qalmo in la xukumaa laga yaabaa khatarahaas oo dhan maadaama ay ku gadaaman yihiin waxaan isleeyahay qof kasto muhiim ayay u tahay inuu wax ka ogaado xeerka ciqaabta Soomaaliya dhinaca labaad ama sababta labaad oo ay muhiim u tahay xeerka ciqaabta Soomaaliya in qofku ay ku cudur daarata ma ogeyn laga aqbali ma
qof kasto waxaa waajib looga dhiga inay barato waxa khaladkan markaan gelayay ma ogeyno aniga kama warhaynin cudurdaar kuuma noqon karto laakiin xeerarka kalantood waa la ogol yahay qofku inay ku cudur daarato aniga arrintan ma ogeynin ama kama warhaynin sababtaasan u jabiyo cudurdaarka noocaasa waa laga ogol yahay laakiin xeerka ciqaabta lagama ogolo labadaas sababood dartood waxaan isleeyahay qof kasta oo muwaadina ama guud ahaan dadka way ku khasban yihiin inay xeerka ciqaabta ay wax ka ogaadaan xeerka ciqaabta waxaa loola jeedaa maxaa dembiya maxaanse dembi ahayn ayaa loola jeedaa arrintaas waa dadka guud sharciyaqaanku dee asigu si guudow xeerkii u bartay oo jaamacadda marka uu dhiganayo wuxuu soo bartay qaybaha kala duwan ee xeerarku ay ka kooban yihiin ama public law ha galo ama private law ha noqdo kadib laakiin takhasus ayuu samaysan doonaa laga yaabo inuu ku takhasuso xeerka ganacsiga laga yaabo inuu ku takhasuso xeerka shirkadaha laga yaabo inuu ku takhasuso xeerka dastuurka laga yaabo xeerarka maamulka inuu ku takhasuso xeerarka shaqada takhasus unbuu yeelan karaa laakiin takhasuskaas uu yeesho waxaa jiro xeer mar walba inaad taqaano ay waajib tahay waa xeerka loo yaqaano qaanuunul ijraa'i ama procedural lawga ama xeerka habraacyada inuu barto khasabay ku tahay takhasus kastoo aad leedahay kama maarmi kartid barashada xeerka ijraa'iga kama maarmi kartid maxaa yeelay tusaale haddaa ku takhasusto xeerka madaniga waxaad u baahan tahay in aad taqaano habraacyada loo maro xallinta murannada madaniga ah oo dhasho inaad taqaano sidaa maxkamadda u aadaysid inaad taqaano aad u baahan tahay haddaa ku takhasusto xeerka ganacsiga waxaad u baahan tahay inaad taqaanid habraacyada loo maro sida loo diiwaan gashto magaca ganacsiga calaamadda ganacsiga sida haddii muran ganacsi uu yimaado loo aado maxkamadda ganacsiga oo looga hordoodo mushkiladaas loo xalliyo haddii aad ku takhasusto xeerka shirkadaha sidaasoo kalantood waa inaad taqaano sida shirkadda loo abuuro loo diiwaan geliyo hadhowta hadday shaqan weyso loo kala duro loo xalliyo murannada u dhexeeya sheerleyda shirkadda iyo dadka kalantood waxaasoo dhan inaad taqaanin haddaa ku takhasusto xeerka dastuurka waa inaad taqaano sida loo xalliyo murannada dastuuriga ah sida loo aado maxkamadda dastuuriga haddaa ku takhasusto xeerka maamulka waa inaad taqaano habraacyada lagu xalliyo murannada idaariga haddaa ku takhasusto xeerka shaqada waa inaad taqaano habraacyada lagu xalliyo murannada oo shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ka dhexeeyo sida loo aado guddiyada dhexdhexaadinta mar walba waxaan kaa helaynin haddaa sharciyaqaan taha takhasus kastoo aad leedahay xeerka ijraa'iga kaa heri maayo maxaa yeelay xeerka ijraa'igu wuxuu micneeyaa ama wuxuu dhedhan u yeelaa xeerka mawduuciga oo aad ku takhasusi doonto takhasuskaaga dabcan adigaa dooranaysa dhedhan ma yeelan kara takhasuskaaga haddaadan aqaanin habraacyadii dhedhanka loogu yeeli lahay xeerkaasi mawduuciga eh si kale marka loo yiraahdo aad u mahadsan tahay jazaak allah khayr awkaad takhasusaatka sharci dabcan hadday sidaa tilmaantay talooyin badanna waa ku jireen laakiin talooyinkaaga ugu dambeeya maxay yihiin gaabka ama baahiyaha ugu muhiimsana sharciga ee hadda taagan haddii ahaan lahayd tusaalahaan ardayda takhasuska u qaataa sharciga iyo ardayda kale laga yaabo inay danaynayaanba maxay yihiin gaabka ay is leedahay sharciya bannaan ee ay tahay inay buuxiyaan ardayda sharciga baranaysa iyo ardayda kale danaynaysa soo dhawow aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan is leeyahay marka la fiirsho baahida jirto hal iyo labo iyo saddex waa ka badan tahay takhasus maanta la dhihi karo takhasus sharci oo maanta la dhihi karo waa laga batay dad tiro badanaa bartay waa lagu yaacay maba jiraba Soomaaliya
meel kasto ama takhasus kasto waxaa ka jiro baahi ayaa ka jirto laakiin yaa ugu daran dalku baahida ugu badan hadda muxuu qabaa aniga waxay ila tahay baahida ugu badan ee maanta dalku qabo waxa waayay in la helo kaadir sharci yaqaana oo awoodo waxa loo yaqaano as-siyaaqa al-qaanuuniya oo karo inuu sameeyo xeer uu qoro dukumiinti sharci oo yacni professional inuu qoro baahida koowaad oo maanta dalkeenu qabo taas waay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku yiraahdaan waxaan u baahannahay xeerarka caalamiga dad yaqaano heshiisyada caalamiga noo galo maadaama Soomaaliya adduunyada ay maxaan iraahdaa u furmayso qofba dhinac inay ka fiirsaa laga yaabaa laakiin anigu waxay ila tahay baahida koowaad oo maanta dalku qabo waa in kaadirkaas la helo limaada sababta aan saas u leeyahay maxay tahay sababta aan sidaas u leeyahay waxay tahay xeer ama sharci marka la sameynaayo waxaa loogu talagalay in la dabaqo si loogu xalliyo mushkilad markaasi jirto mushkiladaas noocay rabtay noqon kartaa in xeerkaasi la dabaqo si uu u xalliyo mushkiladda jirta waxay u baahan tahay in la fahmo oo ciddii fulinaysay ay fahanto ciddii dabaqaysay ay fahanto in la fahmo waxaa ka horeeyo in marka koowaad loo diyaariyo si loo fahmi karo ka warrama haddii aan soo saarno xeerar qaacidadii koowaad loogu talagalay ay labaa tahay ama saddexaad oo saddexaadkii afraad uu yahay oo shanaadkii uu koowaadka ka horeeyo oo lixaadkii oo dastuurka khilaafsan yahay ee toddobaadkii oo shareecada khilaafsan yahay iyo muctaqadaadka dadka ee sideedaadkii uu khilaafsan yahay systemkii qaanuuneeda dalka ka jira ama madarasadii dalka uu haysta uu khilaafsan yahay ee hordhici gebagebe yahay ee gebagabadii booskii nuxurka la keenay ee nuxurkii gebagabadii la geeya haddii xeerkaas aan soo saarano ka warramo tusaale maanta xeerka noocaasa lama fahmi karo maxaa yeelay haddii qur-aanka waa naqaan soomaalida qur-aanka waa taqaanaa haddii aayad ka mida suuratul ikhlaas lagu dhex qoro aayadaha suuratul qaaf bartamahooda lagu qoro ee kitaabka noocaas loo qoro lagu dhiibo ee lagu yiraahdo aayadaasi ka soo saar imise daqiiqay kuu qaadan kartaa aayadda suuratul ikhlaas ka aad taqeena aayad ka mida inaad soo saarto imisay kugu qaadanaysaa daqiiqad maaha saacado maaha maalmay kugu qaadan waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad qur-aanka soo bilowdo ee aada dhammayso laakiin booskeedii markay ku qoran tahay dhag waa kala siinaysaa horaad ka soo helaysaa xeerarkeenna maanta noo yaallo noocaasi ayay u qoran yihiin waxa ka dambeeyana waxa waaye mushkilad waxaan jirin kaadir u diyaarsan arrintaasi ayaan jirin sababtu waxay u baahan tahay arrintaasi in la sameeyo critical think waxa loo yaqaano ama si qofku inay fikirto oo si qoto dheer ay u fikirto kabacdi waxay kari kartaa in si saxan ay u qorto qaarkood waxaa laga yaabaa in Google Translation ay yihiinoo aadanba fahmi karin ujeedada dhanba aadan fahmi karin ayaa laga yaabaa dhinaca kale marka la fiiriyo waa annagii dhahnay si mushkilad jirto uu u xalliyo ayaa xeer loo sameeyaa ka warrama haddii xeerkii la sameynaayo uu xallinaayo mushkilad aanba jirin oo bulshadii la baraayo mashaakilka la baraayo ka warrama haddii xeerka la sameynaayo ounanba mushkilad xallinayne
xeerka gudihiisa lagu qoraayo arrintaan iyo arrintaan waa laga heshiin doonaa xeerka gudihiisa lagu qoraayo ka warrama haddii xeerka la samaynayo uunan shaqo ku lahayn baahidii dalkan uu qabo uunan shaqo ku lahayn ee firaaq badan uu samaynayo ka warrama haddii xeerka la samaynayo uu abuuraayo mashaakil hor leh oo xataa uu ku ciyaaraayo wixii hore u jiro oo ku ciyaaraayo runtii mashaakilkaasi oo dhan xeerarkii ugu dambeeyay dalkan loo sameeyo mashaakilkaasaa ka dhex muuqda waxaana lagu xallin karaa in la helo kaadir awood u leh waxyaabahaasi inuu qabto in gacanta la isaga taago baarlamaanka kaliya ma ahane aadaa u mahadsantihiin